waayeel ka mid ah waxaa jiray wiil yar kaasi oo aad u jeclaa inuu wax ka ogaado sirta guusha. Maskaxdiisa waxaa ka dhex guuxaysay waa maxay sirta guushu. Maalin maalmaha ka mid ayuu wuxuu la tegay oday waayeel ah oo waayaaraga. Su'aashiisii ayuu weydiiyey odaygii waayeelka. Isagumuu jawaabin isla waqtigaa. Wuxuu kula ballamay meel webi ah. Kaasi uu ku yidhi webiga agtiisa isku keen haddii aad doonayso jawaabtaada. Markii ay iskugu yimaadeen goobtii ballantoodu ahayd ayuu odayga waayeelka ku yidhi wiilkii namari webigaa ku dabaalanee. Isla waqtigii ay bilaabeen dabaashii iyagoo webiga bartankiisa ku sugan iyo odaygii waayeelka intuu wiilkii qabtay biyihii hoos u quusiyey. Markuu wiilkii yaraa biyo ku haftay ayuu kor uga soo booday isagoo naqasu ku dheggan yahay. Odaygii waayeelka ayaa weydiiyey wiilkii yaraa wixii ugu darnaa ee uu doonayay inuu helo intii uu biyaha ku dhex jiray. Wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay, hawo ayaa igu darnayd inaan helo intii aan biyaha ku dhex jiray. Odaygii waayeelka ayaa ku yidhi wiilkii yaraa, su'aashaadii weydiisay shalay jawaabteedii wataa, oo sidaad hawada u raadinaysay u raadi sirta guushana. Daawade, duluda sheekadan ayaa ah waxaan dhib loo marin dheef laguma helo.